Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Ma'al Umar YouTube channel. Soo dhawaada waxaan dhageysan doonaa muxaadaro ku saabsan dardaaran iyo naseexo Sheekh Mustafa Xaaji Ismaaciil. Falyatafaddal mashkuuran. dardaarankani waxa uu sheegayaa wixii qofka mu'minka qawiga ka dhigi lahaa maxaa qofka mu'minka xoog u yeelaya wuxuu nabigu yidhi kow ixris calaa maa yanfacuk waxaad ku dadaashaa oo ilaalisaa waxa ku anfacaya nolosha aynu joogno bini aadamku waqti isku mid u haystaa waqti isku mid ah inta badan dadku 60 jir 50 jir 70 jir meelaha waa soo wada gaadha laakiin midhaha iyo raadkay dunida kaga tagaan iyagoo isku waqti noola waa kala nooc sababtay u kala noocyiina waa masalada tan camalka bini aadamku qabtaa waa 3 qaybood mid inuu yahay qayb ku anfacaysa qayb wax tarta aakhiriya adduun manfacuun leh iyo inuu yahay qayb wax dhibta aakhiriya adduuma dhibaato kuugu jirto iyo inuu yahay qayb aan manfac iyo madaro toona lahayn laba inaad ka tagtaa markaa la rabaa midna qaadati wuxuu nabigu leeyahay ixras calaa maa yanfacuk waxaad ku dadaashaa waxa ku anfacaya waqtigaaga iyo maalintaada iyo xooggaaga iyo cilmigaaga iyo aqoontaada iyo hantidaada iyo garaadkaaga iyo waxaad awood leedahay oo dhan waxaad ku isticmaashaa waxa ku anfaca taa macnaheedu waxa weeyaan waxaad ka tagtaa wixii ku dhibaya ka tag waxaad kaloo ka tagtaa waxaan macnaha samaynaynin dadka in badan oo ka midi waxaabay dhib ku ah waqtigoodaba marka waxay raadinayaan waxay ku dilaan waxay ku madadaashaan madadaaladu waa wuxuu rabo qofku inuu waqtigiisa ku baabi'iyo xooggiisa iyo xoolihiisa iyo caqligiisa ku baabi'iyo aan adduunkana manfac ku lahayn aakhirana manfac ku lahayn adduunna wax kama tarayso waxaanu wadaa aakhirana wax kama tarayso qofna isagu wixii dhibayay baabuu waqtigiisii ku bixiyey wax xaaraan aan diin ahaan ku bannaanayn oo caqiid ahaan bannaanayn oo ayuu ku bixiyey nabigu calayhi salaatu wasalaam markaa wuxuu ina leeyahay ixris calaa maa yanfacuk calaa maa yanfacuk ku dadaal waxa ku anfacaya بتعبير أهل العصر وواحد هذان كن منتجا أو كن إيجابيا وحصار لا هو واحتراء هو وناق قبطان نقو نولش هذا مالنتي واحد قبانيسا وين السويديسا ما منفع دون بكولي هي بس منفع آخر كولي هداد واحد لبدا كده حركي ويدو ووحي اللي قويلي كتك هداد منفع دون كويدو ma manfac aakhire ka weydo waxtar ma leh sheekada ugu badan ee Soomaalidu ka sheekaysaa waxtar ma leh siyaasadda iyo qabiilka iyo reeraha iyo waxa laga sheekayo dhab waxtar ma leh badaa iyo ciyaaraha iyo wax la daawado dhab waxtar ma leh wararkan habeen iyo maalinba la dhageysanaya la wado intooda badan waxtar ma leh wax badan aan waxtar lahayn ma dadku waqtigiisa ku qaado nabiguna wuxuu tilmaamayaa min husni islaami almar'i تركه ما لا يعنيه qofka muslimka islaamnimadiisa wanaageeda waxa kamida isagoo ka taga waxaan macna u sameynaynin tarkuhu ma la yaani waxaan isaga khusaynin aan ku khusaynin waxna ku taraynin maanta dad ka warrabto magaalo meel isku dilay kii la dilay adiga waxa ku tari mahaya warkooda iyo akhbaartooda waxa ku tari mayso akhbaarta siyaasiga dadka sheekeeya inteeda ugu badan la waxba ku tari mayso waxyaabahan ka sokeeya iyaguna ciyaarahan iyo madadaadadan iyo whatsappkan iyo snapchatkan iyo waxa la wado dhamay aktharuhum waxbaabay dhibaan aakhiriya adduunba inta aan aakhiriya adduun manfac ku lahaynina aan wax dhibinina waynaan adduun iyo aakhiratoona manfac ku lahayn marka wixii aan manfac ku jirin mid adduuniya mid aakhiro waa inaad ku xisaabtantaa inaad waqtigaaga iyo xoolahaaga iyo xooggaaga iyo caqligaaga inaad gelinin sidaa awgeed buu nabigu wuxuu ina leeyahay ixris calaa maa yanfacuk wixii ku anfacaya ku dadaal
انت كدب النبي وحلي عليه الصلاة والسلام واستعن بالله إلهينا كالميسو إلهي كالميسو معناه دو ينقفك مؤمن كاهي وحكستو وقبانا يا أما وكفكر يا وحرميسان يهي إنه إلهي قعنتي سكجره قفك مؤمن كاهي دبطاهي غرور كمدعو يا عجب سلويني يا أنا عقل بدن يا أنا كرتب بدن يا كامل رميسنا قفك مسلم كي وحرميسان يهي إلهي إنه مركز توبهي مركز تبينه إلهي وباهي تدردد با إلهي القرآن كوحينا باري مركز إنه إلهي سرت أجنين إنه أخرنه إياك نعبد وإياك نستعين إله ودانك عابد إن كليغا بانك كالمة طلبينا قفك مسلم كاهي مركز تباهدي سوقف إلهي وبندقه وقف موتشيا إنه يهي أدون ضعيفة وقف رميسا لا حول ولا قوة إلا بالله وحر رميسا يهي وكنز أي نبي قلت المامي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن قيس بن نبي يقول ما كنت صيا كنز من كنوز الجنة خزنات جنة كم إذا مخوشة فقلت بلى يا رسول الله ها بيقول إلهي رسولك سيو حديث الصحيحين كويا النبي يقول مركا لا حول ولا قوة إلا بالله ويا لا حول أو حالة مليه هي أوتونا إلا بالله موياني إلهي وأن قرقار سدى موياني أنو حول يا حالة يا قوة يا إطال مدنا مليه وفق مسلم كاي مركا وقف باهدي سيله وبردها نبي محمد عليه الصلاة والسلام صحابي وتشعلا معاذ بن جبل وحكول يا معاذ والله إني لا أحبك إلهي بان كل دارتين معاذ وان كتشعلا هي النبي عليه الصلاة والسلام مركز معاذ نبي إلهي رسول كيسي واربونا واكو جعله نبي عليه الصلاة والسلام مركا وحولي كلمة كبرية الصلاة كستد بديتك التقين مركز طاعت صلاة تكتو فرلا رياضا كل واقع رياض محيي ورياض أذكرتها إنه آخرنا مركين الصلاة تكنوين اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك النبي كويل عليه الصلاة والسلام عادي بن جبل وحاتر هذا إلهي يقول قرقار حسكاغا إنان كو حسو آنان كو إلابين إنان كو مهدنقو آنان كا قالوبين إيه سفي عن إنان كو عابدو إلهو كا يقول قرقار له النبي عليه الصلاة والسلام مركا وحي نقول الدردار ميا كو احرص على ما ينفعك وحي كو أنفعي إنك كدداش وحن كو أنفعي إنك كتكتو السلام مركا أنا إن إلهي تلا صارته وإلهي سبحانه وتعالى أدو تلا صارته وحوالبا وحو النبي راعي مركا تعكس جيده وحددك ودي ديني وحقبطان ولا تعجز بنبي عليه الصلاة والسلام تعجز هي تعجز لبضب والله ورنك أبو هذا إمام النووي لكن كسر ضعانا ولا تعجز عاجز كوا معي قفك بني آدم قال لما وحبا كل عبيد هذا الكسل والعجز بين هذا كسلك وقفك وهسي عدم الإرادة وقفك أن دونيس بالهين إنه حقبت بالربين عجزكونا وقفك يربين وحي قبطه لكن هدنا قابن كارلا وطاقلا عدم القدرة شقق كستو الله قبطه واحد هذا لبدهم الشيء بو عملك ككوبني إن واحد دونيسيد يينا دوديد markaasoo camalku ku qabsoomaya inaad doonaysid inaad qabato iyo inaad awoodo nabigu kaleey salaatu wasalaam markaa wuxuu tilmaamayaa inaynan cajsinin dadka bad iyo wax kasta ay qabtaan taswiif ku sameeyo insha Allah baraan sameyn doona war ma taad qaban karaysaa maxaa bari camal kale u dhigo ma ay baraan sameyn doona wax kasta baru u dhigaya ama ma he barnaamijyo iyo barnaamij buu dagaya rasuulay insha Allah saasa yeelaya sanadka dambe quraankan xifdinaya sanadka dambe waxaan rabaa jaamacada ee balas inaan kaga baxo insha Allah waxaan rabaa waqtiga soo socda tijaaradaas inaan galo waxaan rabaa kutubta inaan dhigto waxaan rabaa cibaadada inaan sameeyo laakiin afku kaliye waa barnaamij afka ah
camal ma gaadhayo isuma bedelayo maxay wax camala isuma bedelayo in wax la bilaangareeyaa ma xuma laakiin waxaad bilaangaraynaysaa waa inuu yahay waxaad awoodoo qaban karaysa marka koowaad shay fii maqduurik waa inuu yahay waa inaad qof riyoonaya noqon dadka badh baa day dreaming adoo soo jeeda inaad riyooto maaha waxaanad samayn karayn haddaad iska wadwado waa riyo kale un dadkii hurdaa riyooda dadka soo jeedana qaar baa riyooda oo mar haddaad waxaanad qaban karayn aad ka fekerayso waad riyoonaysaa waxaad balaangaraysay waxaad qaban karta waa inuu noqdaa marka labaadna waa inaad fulisaa fulintu dadka badh baa fulanima haysaa armaa dadku kula yaabaa armaa si xun lagu eegaa armaa shaki unbaaba iskaga soo ururaya dadka badh oo wixii uu qaban lahaa u diidaya armaa lagu idhaahdaa waxaan wuu istusaya waxaan kan buu samaynaya laakiin nabigu wuxuuna leeyahay ixris calaa maa yanfacak istacin billaah walaa tacjis marnaba ha caajisin wale nabigu calayhi salaatu wasalaam saxaabigii u shaqayn jiray anas ibnu maalik ahaa ayaa wuxuu leeyahay anuu nabiga u shaqaynaya wuxun baan maqlaa isagoo ku celcelinayoo leh allahuma inii acuudu bika min alhami waalxasan waalcajsi waalkasal waalbukhli waaljubn wadalaci ddayni wagalabat alrijaal isagoo ku celcelinayoo leh ilaahu waxaan kaa magan galay warwarka iyo walbahaarka iyo tiiraanyada iyo murugada hamigu waa waxa soo socda uu qofku ka warwaro mustaqbalka oo la madoobaada oo dabeetana qofku warwaro xusniguna waa wixii ka tegay qofka oo tiiraanyo iyo murugo ku reeba idan waa laba warwar ama laba walbahaar laakiin waxay ku salaysan yihiin midna waa wixii tegay midna waa waxa soo socda nabigu calayhi salaatu wasalaam labadaba ilaahay buu ka magan galay wuxuu kaloo ilaahay ka magan galay alcajsu waalkasal waa labadan xanuun aynu hadda sheegayna qofku inuu cadami alqudra inuu wax awoodi waayo ama in doonistuba ka dhimato doonistuba inay ka dhimato dadka badh baa wahsiga iyo hurdada mooda inay nimco tahay waa raaxaysanaya buu leedahay deetana wuu jiifaya saa baktiga waxba nolosha hurda kuma soo kordhiso qofku waa inuu hurdada seexdaa intuu uga baahnaa un intuu caafimaadkiisa ku ilaalinayay intuu nashaadada jidhkiisa uu dib ugu soo noqonaysay sidaa awgeed buu nabigu wuxuu ilaahay ka magan galay wahsiga iyo waxtaryarida wuxuu kaloo ilaahay ka magan galay bukhliga iyo jubniga jubnigu waa baqaha oo qofku markuu wahsado dee wixii uu ka baqaya dabeetana si aad u sugaysa leedahay baraad qaban inaad u leedahay ayay iswada fuulaysa hadhowna waxay gaaraysaa shaqadii waxaanad qaban karinba bukhliguna waa wixii oo anfacaagii oo aan dadka gaadhaynin wadalaci dayni wagalabat alrijaal waxa uu nabigu sheegayna waxa ka ratibma daynta oo kaa xoog badata iyo bini aadamka oo kaa xoog bata xadiidkani waxa uu tilmaamayaa markaynu soo duuduubno qofka muslimka inuu qof active ah qof nashiita qof firfircoon qof raba inuu wax qabto qof camal adduuniya mid aakhira mid un ku foogan qof aan noloshiisu khasaare noqonin ama waqtigiisu khasaare ahayn ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam tilmaamaya walidaalika buu nabigu wuxuu tilmaamayaa waqtiyada qaarkood yacjizu axadukum buu nabigu yidhi waar midkiin miyuu kari waayaya an yaksiba kula yawmin 1000 xasana maalin kasta inaad 1000 xasano shaqaysato miyaad awoodi kari waayeysa raggii meesha fadhiyay baa wuxuu yidhi kayfa yaksib axaduna 1000 xasana oo midkaa yeesuu 1000 xasano u shaqaysan karaa 1000 ajara u heli karaa qaala yusabixu 100 tasbiixa fayuktab lahu 1000 xasana boqol goor baad subxaan allah odhanaysaa iyo waxa lagu qoraya subxaan allah intay kaa qaadanaysa boqol gooro subxaan allah waa less than 1 minute waran hal daqiiqo oo noloshaada ka mid ah haddaad 1000 xasano shaqaysan karto saacaddii misaad shaqaysan karaysa
meesha taalla markaa nabigu wuxuu leeyahay qofkaasi subxaana allahi yidhaahda ee tasbiixda la yimaada kun xasanana waa loo qoraa aw yuxatu canhu alfu khati'a ama kun dambaa laga dhigaa cajsigu dad buu gaadhay inay xataa awoodi kari waayeen inay ilaahay baryaan ilaahay baryadiisa xataa inay ka gaabsadaan sawgeed buu nabigu wuxuu leeyahay acjasu nnaasi man cajasa can idducaa acjasu nnaas man cajisa can idducaa dadka waxaa u caajisnimo badan dee ninka awoodi kari waaye ilaahay inuu baryo wa abkhalu nnaasi man bakhila bisalaam dadka waxaa kaloo u bakhaylsan buu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam qofka dadka kala bakhayla inuu ku yidhahda assalaamu calaykum assalaamu calaykum waa duco inaad dadka u ducaysad kala bakhaylaysa ayuha alaxiba halana cajsigu marar badan buu noqdaa jahliga marar badan buu sababta cajsiga keenta ay tahay aqoon darrada waayo subxaana allahi haddaanad ajarkeeda garanayna waa aqoon darra ku haysataa aqoon darrada waxay keentaa qofku inuu waxba qaban waayo ad aragto qof aydhal ah jahlnima haysata walow uu xoog badan yahay walow uu dakaagiisu intelligencekiisu uu sarreeyo walow uu caqli badan yahay mar haddaanad muntij ahayna wax soo saaraynin waxay yidhaahdaan nolosha waxaa qiimaha ku sameeya ma aha inaad caqli badantay ee waxa weeyaan bay yidhahdaan inaad hardware kar tahay nolosha taasaa raad ku leh qof xoog wax u qabta inaad tahay radka badane hadduu hurdo dhalo waxba tari maayo si kastoo aad daki u tahay haddaad qof ziyatay qof aan firfircoonayn haddaad tahay garaad bandidu waxba kuu kordhin mayso si awgeed buu nebigu wuxuu tilmaamayaa amaba si aan aayadda qur-aana tilmaamo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu qur-aan ku tilmaamay qof dhan oo bini aadam ah oo intuu dembiilo noqday arday u noqday tuke yaas inaad tuke arday u noqotid tabardarradu halkay gaadhay saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu leeyahy fabacatha allahu guraaban yabxathu fi lardi liyuriyahu kayfa yuwaari saw'ata akhiih qaala yaa waylataa acajastu an akuuna mithla hada alguraab fawaariya saw'ata akhi faasbaxa min annaadimiin in aadamkii walaalkii dilay markuu dembiga geystay walow uu xoog weynaayo xooggaa walaalkii ku dilay uu qabay kadib aqoon darrada haysatay waxay noqotay si uu u galo meydkii walaalkii buu garan waayo ilaahay baa wuxuu u soo diray tuke tuka markaa aqoonta ah in wax la xabaalo baray tukaa tuka kaloo dhintay god u qoday oo aasay wuxuu baray markaa in wax la xabaalo u halaan halay ama wuu calaacalayo wuxuu leeyahy yaa waylataa acjastu an akuuna mithla hada alguraab halaagaygiiyow kaalaye ma waxaan ka liitaa ma waxaan ka waxtar xumaaday inaan tukahaasoo kala noqdo idan jahligu tukuu macalinkaaga dhigi dad badan oo maanta soomaaliyeed oo iska fadhiya waxay la fadhiyaan waxay qabtaanba way garan waayeen jahligaa fadhiisiiyey si loo qoto ma garanayo wax kale si loo sameeyo ma garanayo aqoon si loo barto ma garanayo jahli baa fadhiisiiyey jahligu markaa dadka uu duleeyaa idan aqoontu iyo cilmigu waa min alquwa المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير قوة الشيء يا قونتا كمدة ساوغيت أيو النبي عليه الصلاة والسلام إن قال دردار ميا استعن بالله ولا تعجز إلهي كالما يسو واستعانة هذا إلهي كالما يسو أنا عاجز قرآن كان إلهي وحينات المامية إن بدن با إلهي وحكا قرآن كورميا غير بنو إسرائيل لليه خذوا ما آتيناكم بقوة وروح عن دين كانوا يدين سودة جني ورسي اجتهادي يفر فرعوني حوق وكتشرو خذوا ما آتيناكم بقوة با إلهي ليه نبي موسى محا إلهي ليه وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء
فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. إلهي نبي موسى كله فخذها بقوة سددال يتمر كتشر تقوقاضا خذوا ما أتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا. marka ilaahay uu nabi yaxya la hadlayay waxa la yiri ya yaxya khudh alkitaba biquwa war nabi yaxyow kitaabka si xoogan u qaada baa la yiri si jiddiya si ijtihaad ku jiro si dadaal iyo firfircooni ku jirto ilaahay kitaabkiisa u qaada baa la yiri quraanka ilaahay uu ku sifaynaya dadka wahsiga iyo cagsigu haya inay sifada munaafiqiinta tahay وهسوا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. منافقين إلهي وعقوت المام صلاة هذا وكعة وكعة يجو كسالى يجو وهسي عاجس هيا ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. صلاة لما يما دام إلهي يجو حالة كسوغن مويان. أيها الأحبة markaad wahsato acmaashu way isfuulfuushaa wixii maanta kugu habboonaa inaad qabato markaad qaban weydo wayse sii kortaa sidaa awgeed baa ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa yaa ayuha aladiina aamanuu maa lakum idaa qiila lakum infiruu fii sabiili illaahi athaqaltum ila alard war dadka mu'miniinta ahu maxaa idinku dhacay oo haddii la yidhaahdo ilaahay tiisa usoo baxa jihaadka usoo kaca athaqaltum ila alardi baa la yidhi maxaa dhulka idinku cusleeyey ayaa ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala maxaad dhulka isugu nabaysaane u kici kari weydeen araditum bilxayaati addunya min alaakhira ma adduunka aakhira ka jeclaateen baa ilaahay leeyahay famaa mataacu lxayaati addunya fi laakhirati ilaa qaliil ilaa tanfiruu yucadibkum cadaaban aliima wayastabdil qowman gayrakum walaa taduruuhu shaya. ayuha alaxiba kuwa munaafiqiinta jihaadka ka wahsada ilaahay wuxuu ku tilmaamay inay sifaadka munaafiqiinta ka mid tahay taasi. ayuha aladiina aamanuu khuduu xidrakum fanfiruu thubaatin aw infiruu jamiica waina minkum laman layubati'anna fayna waxaa idinka mid a baa ilaahay leeyahay mid dadkaba cagsi gelinaya o fadhiisinaya oo dib u reebaya. waxay yidhahdeen daraasaadka cilmiga ee dambe xataa caafimaadka qoladan maanta ka shaqeysa waxay tilmaamayeen daraasay tilmaameen cilmiga Hong Kong ay ku sameeyeen oo dadka Hong Kong baadheen markaas waxay yidhaahdeen laziness-ka iyo waxqabad la'aanta iyo sigaarka bulshada keebaa dadka leyntiisa ku badan bay dhahay. sigaarka waxaa la wada yaqaanaa inuu sun yahay boys iyo dadka laayo cagsiga iyo iska fadhiga ka batay iyagu daraasaday sameeyeen qolana 6,800 meelahaasay noqotay qolana 5,700. maanta waa kuwan yidhaahdaa xanuunada ugu tirada badan lee bini aadamka ku dhaca waxa keena bay yidhahdaan maxay exercise la sheegay inaad boodboodo quran ma waa inaad wax qabato laakiin haddaad iska yuururto una fadhidid qof fadhiya habeen iyo maalinba caafimaadkiisaba khatar ku jira. kaalay nolosha inaad waxtar ku yeelato iyo wax soo saar inaad yeelato ee waxa khatarta gelaya waxa weeyaan maxay adiga caafimaadkaagii baa khatar gelaya. ولذلك بقى طبعا ما أنت واحد تلمامة يعني قفكو إنه نشاط سكيليو ما معين بعد غبطة ما سكر بعد غبطة ما كم بعد غبطة ما أنت صعو أنت قبو أنت يعني هو وحقبو فردقو مركا عقلي أنا وما فينا إسك فردق أنا وحبل لقو قبانيني شركنا وما فينا آخرنا وما فينا أدونا وما فينا ليزي نسو مركا نولشة ميل لبا وحكا قماله وحماشة الله قفك مؤمن كي إنه منتج نغضه wax soo saar leh inuu noqdo weliga hamoodina waqtigu ku dhaafay dadka barbaa isle faataka alqataar ka sheegi jireen yani waqtigiiba tagay intaan meesha fadhiyay inta ku hadhay cimriga baa wax soo saar yeelan karta laga yaabo dadka badheysay oo maanta kuntan jirbaad ama waxbaad baran karaysaa dadka kuntan jirreynta ku bilaabeen culimadii waaweynay dunida noqday ma garanaysid cimrigaagu intuu ku gabagaboobi doono ma garanaysid inta ilaahay adiga chance ku siiyay adiga waxa ku xilka ku saaran wuxuu yahay inaad rumaysato cimrigu wali mutasac baa jira
nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam isagoo taa inugu dhiirinaya wuxuu tilmaamayaa in qaamat isaaca وفي يد أحدكم فصيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها نبقى عليها دو قيامه حقا كصوب لا بوصوكعه وأدقعنتك هيسو فصيلة دو حالي قتمريت كيرا الله أبغى ليو قتمريت يرى أدقعنتك هيسو هذا تكجر سنكرتين هذا أبغى شبه نبقى لي أبغال بير هذا تكجر سنكرتا بير وإننا يدان قيامة ما إننا نركينا بين فردنا ونلين وان قبوبي Soomaalidu dee 40 jirkay ku gabowdaa Soomaa ku Soomaaliga markuu bini'aadamku uu xoog badnaa markuu gaadho ayuu yiraahdaa waan gaboobo xolabo way ka dhabaadeen bini'aadamku aqligu ka gaboobaa haddaad maanka ka gabowdo ayuu maad gabowday inta kale waxbaad qaban kartaa ساوجد بالنبي عليه الصلاة والسلام وحينات المامية قبل الموت إن فرص جرو أنت جارد كهر رسالة فرصات هيسطو فرصات وحلقو قبطين هيسطو واحد يريسان يساوي حوي نغضة واحد يريسان يسامحان وقت شيء ده صدر قرآن أين القيب توا وح كل يرسمه حتى لا وهذا مالك استصدر قيب وقرن القرآن كدمين تصدر قيب وقرن القرآن كدمين أنا دوري يتوسل لضغط كل ما ينسى هذا مالك الصدر قيبته ده صدر هل صدر واحد هذا قبضكو تراكمك بيرتامكو قيمها كو سماية مركنات قبان يسوي حيرانتي سيكون مغني ضد مالنتي هل صفحة قرطه هل بيج ضد مالنتي قرطه sanadkii misaad soo saaraysa ugu yaraan 2 buug baad qori kartaa sanad kasta sanadku waa 365 maalmood dad maalin kasta page qorto macnaheedu waxa weeyaan ugu yaraan buug 300 page ka badan ayaad qori kartaa laakiin hadda tiraahdo ma xaashi aan qoriba buug noqon doonta maxaan xaashi ka qori doona aqoontu iyo wax qabadku iyo waxtarku taraakumka inay biirtaabay wax ku noqotaa wax kasta oo biira aakhirka wuxuu tagaa maxay wax qiimo leh buu noqdaa taas waxay keensanaysaa inaad waqtiga waxba yaraysanin in wadaada wuxuu tilmaamayay jaamacad buu master degree ku qaatay isagoo shaqo kale markaa wada inta uu gaariga soo socda uu gurigiisa ku sii socda buu dhageysan jiray uu nacjilada jaamacadda warkeeda inta loo duubo ayuu wuxuu dhageystaa inta maxay gaariga sii wado inta gaariga gurigaaga jaamacadda tagtay gurigaaga ku sii socota inta aad dhageysato ayaad ku qalin jabin kartaa laakiin waa haday taraakumto waa hadad maalin walba sida tan u dhageysanayso marka waxaan uga dan leenahay amalku iyo wax qabadku iyo waxbarashadu iyo wardiga iyo wax waliba in la biiriyaabay wax ku noqdaa in la joogteeyaabay wax ku noqdaa amalka ina joogtayso ayuu wax ku noqonaya ilaahina wuxuu ina leeyahay wala tahinu wala tahzanu wa antum la'alawna in kuntum mu'minin wartadka mu'miniinta wahniyo idinku dhicin haniyad jabina ana murugoonina idinka koreeyaba ilaahay tilmaamaya hadda kuwa mu'miniinati hadda dariiqa iimaanka raacdan waa koreynaysaa hatta markan awoodaadu intaad qaban kartaa ha yaraata laakiin inta qabo sawgeed baa ilaahay quraanka wuxuu leeyahay waka'ayyin min nabiyyin qaatala ma'ahu rabbiyuna kathiir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wama da'fu wama istakanu wallahu yuhibbu as-sabirin badana inta nabi qaatala ma'ahu rabbiyun معيسى إلا دقال قالين كوا رب لو نسبيي إلهي سديبي ومي ضعيف يحدب سو قاري مي يسديبين مي يسدول دقين يا واحد نغدين ضد ولو مركاها لقب حروق بتيو وضع عملك إلهي أنت النتيجة ذاك قارية أيها الأحبة مركا حديثك كم النبي وكوجب جبيني عليه الصلاة والسلام وارت الماميسة
ereyga low ah wixii kaa tegey tiiraanyadooda inaanad isku mashquulin oo wuxuu nabigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam ha odhanin bal ma haddaan sidaa iyo sidaa yeeli lahaa waxaasaa soo bixi lahaa saasaa noqon lahay fa ina low taftaxu waxay furtaa low waa camal shaydaan albaabka shaydaankay furtaa oo maxaa jira alqadaa walqadar mar hadduu ku dhaafo lama calaacalo qaar baa waxay yidhaahdeen low kaanuu cindanaa maa maatuu wamaa qutiluu hadday nala joogi lahayn waa kuwo munaafiqiina waxay leeyihin muslimiintaa soo dhimanaysa hadday iska joogi lahayn oo nala fadhihi lahaayeen maa maatuu wamaa qutiluu manay dhinteen labana dilin ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamayaa qul low kuntum fii buyuutikum labaraza aladiina kutiba calayhim alqatlu ilaa madaajicihim waar xataa guryihiina haddaa ku jirtaan intii waktigu ka dhammaatay geeridu way u iman lahayd baa ilahay leeyahy subxaana wa tacaala saa awgeed low waxay culamada qaar yidhaahdaan mawdicu tacliimkuunbay ku fiicantahy ayaa la isticmaali karaa oo maalan jaamacad baad ka soo qalijabisay wixii aada barataa marketka aan shaqo ku lahayn qof yar baa ku yidhi ila tale markaasaa waxaad ku tidhi maanta haddaan jaaniska haysan lahaa low kaan haddaan jaaniska haysan lahaa kan maan galayna kaasaan geli lahaa waa litacliim qofkan baad rabtaa inaad tidhahda war natiijada anaa wadadan soo marayo ma fiicne waxaad isku daydaa maxay kan kale inaad saas daraaddeed buu nabigu lahaa low istaqbaltu min amri ma stadbartu markii ay ugu tilmaamayey dadkii soo xidhay cimrada ama xajka soo xidhay ee xalaaloobi kari waay ee hadyiga waday haddaad hadyidu waddo ma xalaaloobaysid haddaan arrinkayga hadda wixii soo dhaafay hadduu hadda ii bilaabmi lahaa buu nabigu leeyahy hadyigana maan soo kaxeeyeen dadkana waan la xalaaloobi lahaa buu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam culamada waxay yidhahdaan markaa min baabi tacliim iyo meelaha hadday tahay waa bannaan tahay laakiin baabu calaacalka hadday tahay bay leeyihin ma bannaana oo waa maxay qul maa shaaa allahu kaan waa inaad rumaysataa wamaa tashaa'uuna ilaa an yashaaa allah ina allaha kaana caliiman xakiima wixii tegey waxba kama bedeli kartid maadaama aanad waxba ka bedeli karaynin ilaahay wuxuu tilmaamayaa wamaa tashaa'uuna ilaa an yashaaa allah ilaahay wuxuu doono mooyaane wax kaloo idinku dooni kartaan ma jirto ina allaha kaana caliiman xakiima bale waxaad ka calaacalaysa waxaaba laga yaabay khayrku saa ku jiray wacasaa an takrahuu shay-an wa huwa khayrun lakum waxaan kusoo koobaya markaa xadiidka dhammaantiiba nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay mu'minka waxtarka ah ee nafciga leh ee xooggiisa iyo caqligiisa iyo wixiisu qabanayo nashiidka ee ku firfircoon qawiga ah ayaa ka khayr badan mu'minka daciifka ah mu'minnimaduna dhammaanteed waa khayr marka horeba dardaarankaana weyna siiyey wixii ina anfacayana inaynu samayno ilaahayna inaynu gargaarsanno cajsiga iyo kasliga iyo waxaana inaynu iska dayno wain asaabaka shay-un falaa taqul haddii wax sidii aad rabtay natiija u dhici weydana ha odhanin buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam haddaan sidaa iyo sidaa yeeli lahaa laakiin waxaad tidhaahdaa qul qadara allahu wamaa shaaa facal faina low taftaxu camala shaytaan sala allahuma calaa muxamadi wacala aalihi wasaxbihi wasalam walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin